Salaamullaahi calaykum. Dhammaantiin waxaad isweydiinaysaan shirkii Carta. Shirkii Carta waa mid ka mid ah shirarkii ugu weynaa ee dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee soo maray taariikhda casriga ah. Haddaba shirkan wuxuu si rasmi ah u furmay bishii May 2000 wuxuuna socday ilaa Agoosto 27 markaas oo si rasmi ah loogu doortay madaxweynaha dowladdii ku-meelgaarka ahayd. Shirkani waxaa martigeliyey madaxweynaha Jabuuti ee waqtigaas ahaa ee lagu magacaabo Ismaaciil Cumar Geelle. Sababta uu shirkan u qabsoomay ayaa waxay tahay kadib markii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya ay burburtay sanadii 1991. Dalka Soomaaliya wuxuu galay dagaalo sokeeye, kala qaybsanaan beeleed iyo amni darro joogto ah. Waxaana hore loogu guuleystay shirar hore oo ka dhacay dalka Jabuuti 1991. Shirkii dib u heshiisiinta ee u dhexeeyay USC iyo jabhadaha kale. Addis Ababa 1993 shirkii qaramada midoobay ay taageertay balse ma miro dhalin. Fashilkaas kadib Jabuuti waxay qaadatay go'aan ah inay soo afjarto dagaalkaas iyadoo fidisay martiqaad oo Soomaalida dhan lagu casuumay iyadoo aan cidna laga reebin. Siyaasiyiin, culimo, haween, dhalinyaro iyo odayaal dhaqameedkaba. Shirkani wuxuu ahaa shirkii ugu ballaarnaa ee ay Soomaalidu abid yeelato tan iyo burburkii 1991, waxaana ka qayb galay in ka badan 2,000 erga Soomaali ah oo ka kala socday dhammaan gobollada dalka deriska, beelaha caalamka, jaamacadaha Carabta iyo qaramada midoobay ayaa kormeer iyo taageero ku lahaa. Shirkan waxaa loo qaybiyey 2 weji: wejiga dib u heshiisiinta iyo wejiga dhismaha dowladda ku-meelgaarka. Dowlad rasmi ah oo Soomaali ah ayaa markii ugu horeysay laga dhisay gudaha shirka, waxayna xarunteedu noqotay magaalada Muqdisho, inkastoo ay si buuxda ah aysan u maamulin dalka oo dhan. Soo celinta kalsoonida bulshada. Shirkan wuxuu dhiirigeliyey rajo cusub oo ku aadan nabadda iyo dowladnimada. Qaabka awood qaybsiga 4.5-ka. Nidaamkani ayaa markii ugu horeysay lagu hirgeliyey shirkii Carta, wuxuuna ilaa maanta saameyn ku leeyahay siyaasadda Soomaaliya. Waxaana jiray soo celin xiriir diblomaasiyadeed. Dalal badan ayaa aqbalay dowladda cusub ee ku-meelgaarka ahayd. Waxaana 2 ama 3 ka sheegi doonaa caqabadihii ka dhashay shirkii Carta. Waxaa jiray khilaaf ka dhashay awood qaybsiga beelaha qaarkood. Dowladda cusub ee ku-meelgaarka ahayd ma aysan helin ciidan iyo dhaqaale ku filan si ay u fuliso go'aamadeeda. Waxaa markii dambe dhalatay dowlad kale oo ka timid shirkii ka dhacay dalka Kenya 2004 oo bedeshay TNG. Waxaa isweydiin leh maxaan ka dhaxalnay shirkii Carta. Carta waxay ahayd tallaabadii ugu horeysay ee Soomaalidu si dhab ah u yeelatay dowlad 9 sano kadib burburkii. Waxayna dhistay hoggaan cusub, qaanuun cusub iyo niyad cusub. Inkastoo dowladdii TNG-ga aysan muddo dheer sii jirin, haddana waxay dhistay dowladihii ku xigay iyo dib u heshiisiinta siyaasadda Soomaaliya. Shirkii Carta wuxuu ahaa mishiinka bilowga dowladnimada cusub ee Soomaaliya. Wuxuu tusay dunida in Soomaalidu ay karti u leedahay inay isku timaado haddii fursad nabadeed la siiyo. Inkastoo ay jireen fashilo iyo caqabado, haddana shirkan wuxuu dhaxal taariikhi ah u noqday safarka dheer ee dib u soo kabashada Soomaaliya. Shirkan wuxuu soo saaray axdi qarameed oo ahaa dastuur ku-meelgaar ah kaasoo hagayay dowlad cusub muddadii 6 sano ahayd 2000 ilaa 2006. Axdigaasi waxaa laga qoray dhowr qayb oo muhiim ah, waxaana ka mid ah midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya, nidaamka dowladeed ee Soomaaliya, qaabka awood qaybsiga systemka 4.5-ka, hirgelinta federaalka, xuquuqda muwaadiniinta iyo dowladda ku-meelgaarka ah. Haddaba 6dan qodob aan soo sheegnay waxaa hoos imaanaya qodobo kale. Midnimada iyo madax-bannaanida Soomaaliya waxaa lagu adkeeyey in Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay tahay dal oo aan la kala qaybin karin. Nidaamka dowladeed waxaa la dejiyey in nidaamku noqdo dimuqraadiyad ku dhisan dowlad rayid ah kaasoo la magac baxay civil government. Qaabka awood qaybsiga systemka 4.5-ka. Beelaha waaweyn ee 4 ah waxay heleen 4 qaybood, halka beelaha kale ee laga tiro badan yahayna waxay heleen nus oo loola jeedo 0.5-ka. Waa sababta loo kala qaybsaday 4.5-ka ama sababtay ku timaaday 4.5-ka. Waxayna sheegeen in nidaamkan loogu talagalay inuu yareeyo dagaalka beelaha iyo cabashada. Xuquuqda muwaadiniinta. Qodobkani waxaa lagu qoray ilaalinta xuquuqda aadanaha, xorriyadda dalka iyo xuquuqda haweenka iyo carruurta. Hirgelinta federaalka. Qodobkani waxaa lagu sheegay in la dhisi doono nidaam federaal ah si ay u yeeshaan gobollada maamul hoosaadyo. Dowladda ku-meelgaarka. Waxaa lagu dhisay dowlad rasmi ah oo madax ka noqday madaxweyne Cabdiqaasim Salaad Xasan, laguna heshiiyey in caasimadeedu noqoto magaalada Muqdisho. Ergadii shirkii Carta waxay ahaayeen kuwo matalaya dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliya. Ergooyin la soo xulay oo 15 beelood oo waaweyn oo hoos imaanaya nidaamka 4.5-ka waxaana ka mid ah Hawiye, Daarood, Dir, Digil iyo Mirifle oo loola jeedo raxan weyn. Intaas markii aan kasoo gudubno, beelaha laga tiro badan yahay waxay qaateen nus 0.5-ka, 4-kana waxaa qaatay Hawiye, Dir, Daarood iyo Digil iyo Mirifle. Dalalkii iyo ururadii taageeraya shirkani waxaa ka mid ahaa Ethiopia, Kenya, Egypt, Eritrea iyo Yemen iyo Djibouti oo shirkaba martigelinaysay. Jaamacadaha Carabta iyo qaramada midoobay iyo midowga Afrika. Dhismaha dowladdii ku-meelgaarka ahayd. Dowladdii ku-meelgaarka waxaa madaxweyne ka Cabdiqaasim Salaad Xasan oo kasoo jeeday beesha Hawiye, gaar ahaan
ahaan habargedir. Ra'iisul wasaarena waxaa ka ahaa Cali Khaliif Galleer oo ka soo jeeday beesha Daarood gaar ahaan Dhulbahante. Gudoomiye baarlamaan waxaa ka ahaa Xasan Bashiir Faarax oo ka soo jeeday beesha Daarood gaar ahaan Majeerteen. Gudoomiye baarlamaan iyo ku-xigeenka wasiirada intaba waxaa lagu dhisay 86 wasiir oo beelaha lagu qaybiyay nidaamka 4.5-ka. Waxaan isla soo gaarnay guntii iyo gabagabadii. Shirkan wuxuu ahaa mid taariikhi ah. Wuxuu muujiyay in Soomaalidu ay isu keeni karto iyadoo aan cadow shisheeye ku khasbin. Wuxuu soo celiyay dowlad rasmi ah oo hanaankii dowladnimo soo celisay 9 sano kadib burburkii 1991. Inkastoo fashilmay dhanka hirgelinta, haddana wuxuu ahaa aasaas siyaasadeed ee lagu dhisay dowladdii dambe.